تايسان سوت تجنو وحلا قرشية شقارها مركو رجيت كلام قاضي الشقادة أو شقارو إنه نقطة ترتن حرة أو الله ترتنه توصاله يربان السنة سيدا ورد قرن كنا ولو شخص يوسف مراو حسب توي بيان حسبتها الكهرجيسة وكوين دلكها أيام دو واحد وشري دو حبي إن دبلوها جاتشيو ما دام يعصبك قبلنا بمسكين ما دام تنوع حلا ويري وإن السماية تذكره جامين هي وجوه الرياء يعصبك كمان وبدوميها وكحجينك وكشقارها وكقيب تداويك وكقيب تدخاتيرته واحد يسويديه سين وكسح كرا واحد هلو ترتب وانو آمن شرعي عين كاسر عاصمتنا وحول أو ضد كلا الدنيا وين قلت شابية وايو ضد كورة من بدن كيسو عاصمة يسوي أفريقيا وحلقوا عنتها وحلقوا حنتها عاصمتها وحلقوا عاصمة دقولها كشتر انت كلا ولا يلوبه هذه يصير ضد كعاصمة هذا جرينا وحي كعوضان النجا أياكو دولمنا وحي نقدر حيا بيه بالله يقول والشقة بالله يقول عجيب يلا تصبر كاسة تيرو وحنو قامني أنت الضوضاء حين وين وأقوى دور وقوم شهر بدر أنت ترتلوا قال قرن كرم هل كانوا شغلنا كل شيء مارنتها وهريسي وحقيقي صوب حفينه من هذا إنه ندوينه وحقيقي ميت دقموين كهرجيسو أردن ركض صعدة وضيعه نسيبنا قبله كم يشرين واحد هذا ماذا حوينا واحد اللي هلو ترتوه استال كره هرجيسة اللي يرد هرجيسنا ما يلا قبله ده بشقة يكرت الله بها الله وضبا مركو هورة مشارك في المسيسو إن كانوا عرقا ودر هذا ما مصروف كلامه وأمانة ترودره طلبات تم هرجيسو قبله ترتوه يا تقول هلو ترتوه waxay ahayd jawaabtii igu fududeyd ee ka jawaabo wax la weydiiyo waxaan ku uri aad iyo aad baan ugu faraxsanahay idinkoo shantii xaafadaha Hargeysa in ay timaadeen waayo haddaan maanta la oran lahaa kuwa la bedelayaa xaafadu la gaar bay igu meel lahayd annaga inaan kayaga ayaana taabanin annaga inaan kayaga waa horumar qaran ku gaaray inay Hargeysa taa war maxaanu yeelnaa maanaga inaad wada soconnaa baritaan burca u bedelaya oo boor u bedelaya inamadiina mushaharada weyn dawladdu siisaa meel walba saasay ugu daynaysaa waxaana noqotay tallaabo la mahadiyay oo dhakhtarkii hogaamiyay dad aqoon waxaanu sameynay barnaamijka tirakoobka shaqaalaha qaranka shaqaalaha dawladda xukuumadda qaranka waxa ku jira hay'ado badan madax taabasho inta shaqaysa sanadii dheeraad waxaan loo referay in tirada shaqada la helo horta waayo dad waxaanu dagaalnay iyo dhibaatooyin ka soo doogado shaqooyinka istabka iyo inuu wada dhisnay waxaanu eegnay waxaanu dib u eegis iyo casriyeyn ku sameynay qaabka dhismeedka wasaaradaha iyo hay'adaha oo dhan wararta wasaaradaha iyo hay'adu imsay qaad karaan imsay waxa u baahay sax ma aha in waliba suuf kara wasaaradaha u sameeyo waxaanu dib u habeynay oo hoos ugu noqonay in habka dawladda dhexe marayso dhammaantood loo abuuro dawladaha hoose oo loo sameeyo xuduudda shaqaalaha u maamulisa dawladda hoose iyo iskuuliyada tababar gaar loogu sameeyo dawladda hoose oo miisaan weyn ku leh shaqaalaha qaranka oo aanay noqonin kolba ciida joogtaa inay midna soo celiso si ay xuquuqdu u sinaato dadka oo dhan waxa la dejiyay oo la yaala golaha aan u gudbinay xeerka iyo siyaasadda hawlgabka qaranka horta waa la heli karaa adduunka marka hore waa inaad heshaa fikradda iyo xeerka oo la isla ogolaada sida dhibaatooyinka loo xalliyo waxa weeye inaad dhibaatada garato war maxaa inahaya inaad ku xogsiiso seen uga baxraa tolay balro marka waxaanu soo xeerkii iyo siyaasadda hawlgabka shaqaalaha dawladda oo dhan oo haddii alla yiraahdo sanadka soo socda 2001ka loo bilaabayo hawlgabka wixii da'da xeerku sheegay la fariisiyo beeshan la siiyo halkoodana la soo galiyo daayirta shaqada u baahan si aynu u hubino inuu inoo hirgalo hawlgabka shaqaaluhu iyo ciidamadu sanadka soo socda ee 2001 iyo 2002 shaqaalaha hawlgabka ah ee shaqaalaha madaniga ciidamada ma aha dhammaantood hawlgabkoodii waa diyaar inta hawlgabaysa
kharashkoodiina waa loo hayaa oo qaranku u diyaariyay waxa ku xiga markaa in ciidamadana sidoo kale hawlgabkoodii loo diyaariyo oo la socda kan dhaqaalahoodina inta badan loo hayo oo haddii la yidhaahdo ugu dambayn sanadka soo socda loo bilaabi doono qodobka afraad ee aynu doonayno inuu ku saxno inuu dowladnimadeenu noqoto mid hufan oo la wada leeyahay qof waliba aaminsan yahay halkay ka qaldantayna la sixi karaa waa hanti dhowraha guud hanti dhowraha guud wuxuu ka mas'uul yahay inuu qaranka hantiisa ku ilaaliyo madaxweyne ilaa waashmanka ugu hooseeya waa mas'uuliyad saaran cidda xilka haysa ee hanti dhowraha guuda oo qaranku ka sugaayo haddaba si taa loo fuliyo waxaynu ku soo kordhinay hawshuu qaban jiray ee loo yaqaanay hanti dhowraa galay xarig cas buu ku dhajiyey ina hebel baa la xidhayaa odayaal soo gurmadaan fiidiyaha waxa la doonana isugu yimaado oo la ordo waxay noqotay dhibaato u baahan mujtamaca marka hore in loo sharaxo qofku wuxuu qabanaya xaq loogu leeyahay waxaanu samaynay ku dhaqanka shuruucda hanti dhowr markuu baada u yimaado wasaarad ama hay dowladda ka mid ah iyada oo dastuurku sidoo ogol yahay loo gudbi doono waqtigeeda hay-adaha gaarka loo leeyahay oo dhammaan wixii maamul iyo dhaqaale qaranaya waa isku mid si dastuurku qoraaye iyagana lagu dabiqi doono inkastoo ay gudahooda ka samaystaan haddana marka uu baarayo meesha waxa la bilaabayaa intaan la odhan ma lacag baad cuntay mise maad cunin ma hanti baad dhacday sharcigii ma dabaqday hadduu qofku la sharciyada ma aqaano iyana waa hawl kale yaa geeyey qofaan sharcigii loo soo dhigin meesha waa in qofkii leega waar ya inay dowladdu noqon ninkii carab kala ardayga inay raadhe waa raadhan waan carab laahay adigu raadhe qofkii waa la bara sharciga iyo waxa laga doonayo uu ogyahay marka hore marka waxaanu baaraynaa koow markuu yimaado auditku sharcigii ma la dabaqay waxa kaloo loo eegayaa wax aynu ahno hab ma la fuliyo habsaamin u socodkii sharciga loo raacay weli qofkii lalahaa waxbuu maynaan gaarin waayo xuquuq buleey waxa weeye qofkii ma la fuliyo sidii loogu talagalay shaqadii loo socdo ninka madaxdii mas'uuliyadiisa ma qaatay ka ku xigaa ma qaatay 3 bilood ma kantaroolay ma qabtay markii qaladka la galayay ma la saxay labada amarka la fuliyo wado ayaa loo tagayaa qaranka maxaa ka maqan iyo eedale taasina noqon mayso qofka oo qura cidii dayaca gashada oo dhan ayaa u taala waana hab cusub oo imika la baasgareeyay golaashu la baasgareeyeen laguna fulin doono sida habtada qaranka loo baarayo qodobka shanaad ee ugu dambeeya inaynu maamul wanaagsan samaysano waxa weeye waaxda garsoorka haddaynu intaa hore oo dhan soo dadaalay waxa loo baahan yahay qodobka kale ee dadweynaha iyo dowladda u baahan yihiin marka la isqabto ama qaranka laga gala dembi ama qof tirsado dembi ama koox tirsado dembi in lagu gafay waxay xaq u leeyihiin inay helaan cadaalad sugan bini aadmuna intii uu jiray wuxuu ka hadlayay cadaalad waxaana la ogaaday cadaaladda ilaahay uun baa sugi kara laakiin waxaynu u baahannahay bini aadmigu dadaal weyn oo aynu 90% ku dhowaano inaynu saxna cadaaladda iyo in ka badan inta bini aadmi dadaal kara si taa loo helo waxa ugu dhib badan qodobka aynu aad iyo aad isugu rafano dadkoo dhamina la rafanayo dawlad walba dhibaato haystaa waxa weeye laba hal baa is haysto iska soo horjeeda oo ay cadaaladana haysta miisaankeedana ku dhaaran cadaalad ha furisto waxa weeye qofka muwaadinka ah ee ilaahay karaameeyay ee quraankiisa uu ku sheegay bini aadmiga ugu karaamo badan waxa ifku nool wuxuu leeyahay xuquuq dhowrsoon oo la taaban karin oo diinteenu ugu horeysa wixii taa sheegay caalamkuna nagu daday nafta bini aadmiga la gooyn sharaftiisa inaan meel lagaga dhicin ama hantidiisa inaan la dhicin wama adraaka inta la ilaaliyo oo la sugo iyo in nabadgeliyada qofka iyo qaranka la ilaaliyo labadaas ay dhibaato ka dhex joogtaa mar walba caalamka la joogno sababta oo ah dhibaatooyinka jira maanta adduunka ka jira ee meel walba ka jira ee in haysta waxa weeye qofkii sharwadaha ahaa ee inuu ummadan dhibaato u geysta ahaa
كبروا إنه بينكم فافية ونميمية وشروة كيف يسكت ريا ومندوري كينيا وشروة قبائل كيف يسكت ريا ضبوا أفوفيا وشروة كيسا سميني إن قبضت إلى رسو إيه إن قفك حقيسي أورتو مربي نقرأ إسا أرنتو مسكي وبدا سوا جاء كاغري ورما وبدي سوا جاء تبيسه إيه مسك سيد قصوا صارتا أرنتا الساعة حرتا لمر والبا قرض محاكم تيجر صور كإنه هبيان مركو هوري إنه يصوب باران إنه هبيان أنت أيلك تاي مركو دمبنا أيوجد بتوع محاكمته ويسعى عدالة الله ورسوله وقاضاه وأرن عذك أنت هو حدير ونسلوقنا هاي إن بالشدين أنا قفنا أقولين إن لقبته قدام بلاقو قاضي بقول كي بس سجاش جعان كل يجري مكوحدين ما كلا لقبته داد علماء له أو عقال له أو سياسيين له أو مالقبين له أي أقرب عرّي لا أريد حل بالقو دمينه إلى هنا وحي ورد قصاص تدم بيد كترت ولا قرب عرّي هذا واحد دورنا إنه عدالة الله وحاب قاضي تلابوين تالو صحايو إلى أنت حقوق المدنية مواطنين يا سنانته إيش رأيك لو سناده حقوق أصل لو سجى إلى أنت كرامة وقف كلية هاي إسلام مركانة لو قبتها دبيره وحن حير قارة وسوين وأدون كل أسكور عسيه ده كان نقول نافو فقير هوين كأنت بدن عرفورته ده أنت هو اللي حقوق رجعك قف بدن ولا ليه وحن وقناه أفوين كإم كانوا صوب حي واحد كمذا كفسي أو واحد هذا دقن كالصومالي ده ميل شوجبه حرام بوها كفسو نكا إنا كفسا أما كبوه هي أنا دل يلا مدبوها دقن كجيجا الصومالي ده ودل مريض جنتاي إن أنت الصومالي ده أو أنا أنت كسوك حيسوك كنت كيلومتر صورته أي يدور الله في يوم يسوون ورور كمان يحمل جرتي أما هلك أيدوتي أمر جرتي حتى واحد جرتي دقن كين الشركة لا هيجنك وهيري erga heeri la yiraahdo waa maxay halka inanku markuu doono inuu guursado hagoogto uu reeraha dhaxmaro gabar ka doorto hatta hablo iyaga xora oo aan cabsi qabin ayaa inta israacaan heeri noqon jireen nin guursada soo noqon jiray oo reeraha tagi jireen maantana Hargeysa iyo magaalo kasta toban baa inantay gareeyeen xaafadooda ay aad u garanayaan abyaabo garanayaan intay kufsadaan ayaan ciidina ka celiyay haddii dadka iyo ragga iyo mujtamacu أي عيب يوحى لقد قال ما تهي ما يفرق إنه برد بلاش يوحى كقدرت مركز تاسين عضو كفش قاسين عضو وار أي نفرون سو شجنا إنتاسو أضي يا إنتاسو نن أو سئون قف كدم بيجا قرأ ما توان كقرأ أيام محكمات دي كو عرراية أو بوليس كو عرراية أو ودوداية oo sheekada sheegaana ay tahay wabaynu meherina maxaday mawraba ku cunaya la isu meheriyay waxaas macaqliba waa inaynu meel adag taas ka tagana qararahan oo aanay galin laba laga si taalo fuliyo sharci gaar oo imka golaasha marayaan uu sameeyay arintan waxa mar walba iyaguna fooda isku la jira oo waligood kala bixin haddana aan islayna isku mid oo isku shaqo ah warbaahinta iyo dadka talada haya siyaasiyiinta maal qabeen kana ku dar qolada saxaabadu labada qolo mar walba way raadinayaan hadday shirkad magac la tahayna waa raadinayaan warqaalaha inta waa farfareynaya hadduu qof xil yahayna xil haya heer kastaba ha aadana way daba socdaan waynu u baahanahay saxaafadda waa run hawl weyn baynu hayaan way isku kan xidhaan markay isku kan gaarsiiyaan khaladaadkeena ay sheegaan ilaa ka bayd وين أباهنا تلوين يفكر كذلك آن سو قاري كرن مدحدي أقوياء اللي إلى حكمة السيء أي سو قد بيان أنت إبرو كروين وقتها تكلا وضد عن ديف بدن قبل هوشة هي لكن ده يقرأ محل لو باهي أنت الشركة إيه صور إحمرته إن لقى قبتها لو باهي هادون نكي أينو آمني وركودي بني هاي أدى تيفيجا صحافة channel كا أدورك كقادر كتير سنين hadduu war aan sal iyo baar lahayn ku soo daayo dee waa beenaale fidmo wada ee maaha media aynu doonayno hadduu isku diiro dadka uu mar walba waxaan loo joogin oo qabyaalad leh oo fidmo wara leh
oo wax ummadda isku diraayo oo khayr ba lahayn wadana dee waa sharwada ummadda isku diraya wax rabaa ummadda isku xidho marihi u xil qari qof xil qaranka u haya caaqil suldaan dhaqaale leh sheekh caalima siyaasi xildhibaan wasiir madaxweyne tilmaantu sida xadiiskeenu lagu sheegay marna waa nasteexo oo waxay toosinaysaa marna waa fidmidii cadaabad waxa wanaagsan inaad qofku intuu leeyahay u sheegto ee aanad in kale ku darsan ama aanad u dhigin hal tusaale qaranka isku guba taana sharci saa loo marayo qof walba xaqiisa dhowrayaan bini aadmiga karaamu leeyahay qofna sharaftiisa shakhsiga ah iyo qoyskiisa iyo qarankiisa kuma xad gudbi karo saxafi baan ahay waxaan doonaa samaynayaa qaranka xeerna ima qaban karo war ma soconayso xaq baad leedahay ixtiraam baad leedahay karaamaad leedahay qarankaad ka mid tahay ha ka xadgudbin taana sharci baanu ka samaynaya lagu kala baxo waa meesha yaala shantaa waxaan ku dhaafayaa maamul wanaagga waxaanu qorshe u hayno si aynu u helno dad iyo dawlad iyo qaran wada socda oo iska caabiyi kara mawjadaha gadgadoonka siyaasadda ee adduunka qodobka labaad aynu u baahannahay inaynu wax ka qabanno oo dawladda iyo shacbigu isla ogaadaan oo dawladda laga rabo inay toosiso dadka tusto waxay qabanayso waa dib u habeynta habka dhaqaalaha loo maamulo dalka ee qaranku hayo waxaad maqashaan in badan mashruuc la yidhaahdaa dib u habeynta ama casriyeynta dhaqaalaha dalka oo xeerar badan leh oo habka loo maamulaya oo ay naga caawiyaan baanka adduunku oo aqoon iyo dhaqaalaba inagu hirgeliya nidaamkaasi markaan soo koobo 3 qodob buu inoo fulinaya marka hore in dhaqaalaha qaranku noqdo daafuraan oo saxafiga iyo qofka research sameynaya iyo qofka u baahan mid walba u arki karo dhaqaalaha soo loo maamulo ee aanay ahayn wax madaxweyne ama wasiir maaliyadeed ama nin kala jeebka ku haysto oo uu qarsan karo xaq baana loogu leeyahay in la dhaha miisaantiisa tiraahday siday u baxday halkay martay taasoo daafuran baa la wadaa waxa lagu xoojinayaa si taa loo helo shuruucda kasta inay marto qaabka tiknoolajiyada casriga cusub oo ay shaashada uga muuqato qof walba iyo qaabka miisaaniyadda loo diyaarinayo taana waan isku soo noqonaynaayo dawladdu waxay ku socotaa waa dhaqaalaha shacbiga iyo qaranku leeyahay oo laga rabo qof walba wixii ku waajibay in si daafuraan looga helo dhibaatada in haystaa cashuurta aynu bawrba uga qeylaa waxa weeye cashuur bixiyuhu wuxuu ka shakisan yahay nimankan dawladda halka fadhiya waa niman shaqaysanaya qaran oo maqnee iyagu xagaaga ka qaadin waxa laga rabaa xukuumadda inay u muujiso iyo soo socotaaba qaranka in aanay ka danaysan in cashuurta iyo hantida laga qaado qaranka lagu maamulayo oo aad arki karta iyadoo cad oo la soo hordhiga qaranka sanad walba baarlamaanka la soo hordhiga si ay u shaqayso taa ku dheeraan maayo intaasaan ku soo koobayaa waayo waa mashruuc aad u ballaaran oo 10 sano socday dawladdii hore kulmiyaa bilowday 4 sano ay waday anana wali waanu wadnaa waliba wax laga yaabay dhowr sano mar socoto waa mashruuc ugu ballaaran sidii loo heli lahaa taa in isweydiinayno ta saddexaad aanu u eegnay inay tahay ta aynu ku noqonayno qaran midaysan is-aaminsan wax wada qabsanaya oo meel wada jeedo wada tallaabsanaya waxa weeye midnimada qaranka iyo isbeddelka aragtida bulshada midnimada qaranka iyo bulshadeena oo ra'yigooda wax badan iska bedelaan 18 sano ee u dambeysay shacabka Soomaaliland waxa uu ku jiray geedi iyo isbeddel bulsho oo ay kaga guurayaan nidaamka ku salaysan qabaylka una guurayaan qarannimada iyo dimuqraadiyadda ku salaysan nidaamka axsaabta badan isbeddelkaasi arrin sahlan ma aha waxaynu u baahannahay waqti sabir iyo tacab badan mujtamac kasta waxa ay ku qaadataa waqti badan iyo dadaal xoogan si ay uga guurto dhaqankeedii soo jireenka ahaa boqolaalka sano una guurto hab dhaqan ka gedisan keedii hore sidaasay muddo inoogu qaadanaysaa hirgelinta tartanka axsaabta badan iyo dimuqraadiyaddu dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland
wuxuu ina farayaa ku dhaqanka sarreynta sharciga nidaamka suuqa xorta ah iyo oo dheeli tiran nidaamka sanduuqa xorta ah oo dheeli tiran iyo madaxda dawladda oo ku timaada xukunka doorasho xor iyo xalaal ah oo muddaysan oo daahfuran inkasta oo ay jiraan dhaliilo iyo duruufo keenay oo ku jira doorashooyinkeenna sida codbixiyayaasha oo aan faham gundheer u lahayn dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka oo ay saameyn weyn ku leedahay qabyaaladdu haddana Somaliland waxa lagu majeertaa doorashooyinka nabadgelyada leh ee ku qabsooma isbeddelka madaxda dalka oo ku timaada doorasho cod iyo qof ah xil wareejinta oo ku timaada oo la isu wareejiyo si nabad qaba iyo oo aynu dheerahay dad badan xisbiya mucaarida ah oo shaqadooda iyo waajibkooda si qarannimo ah u guta Somaliland oo aan ahayn dawlad caalamku aqoonsan yahay iyada oo cadow badanna leh oo ay ugu horeyso dawladda muqdisho ka dhisan waxa alla mahadiya in garashada shacbiga iyo koritoonkooda garaadkeeda siyaasadeed inuu gaarsiiyay heer caalami ah oo ah doorasho xor iyo xalaal ah oo heerka ugu sareeya madaxda qaranka ku kala bedeleen in badan 20 sano u dambeeyay waana ilaahay mahadi mahadana waxa leh shacbiga Soomaaliland si aynu taa u sii xoojino oo bulshadeenu isu fahamto waxaynu u baahanay waxaynu doorashadeenu waxay leedahay dhaliilo haddii aan doorashada iyo madaxaynu dooranay iyo qaranku isku mid ahaan inay aaminsan kala sheegsayna socon mayno si taa loo helo waxaanu eegnay saddexda qodob in laga saaro laga daaweeyo bulshada waa qabyaaladda iyo in dadka codbixiyaasha doorashadu qiimaheeda la baro iyo in qarannimada si taa loo deero waxaanu sameynay in dadka la baro dastuurka iyo shuruucda dalka waxa la sameeyay barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijka waa dantaade bara dastuurka baro oo ka baxa media idaacadaha oo dhan wuxuu tarayaa qofku markuu dhageysto ilan dastuurka muxuu yahay inta badan bulshada ma taqaano ama iskuulada ma gelin wuxuu garanayaa sida dawladdu u shaqeyso oo ta ugu horeysa wuxuu baranayaa waxa loo ogolay sharcigu ogol yahay iyo waxaan loo ogolayn wuxuu baranayaa xaqiisa soo doontaa iyo seen u dooran karo waxaanu ku daraynaa oo hadda barnaamijka kala diyaarkayna waxa weeye waa barnaamijka sharaxaya dastuurka iyo sharciyada ka farcama boqolkiiba 9 dad badan hadday dhibaato kasta gaadho maba hadli karaan meel dhaqaaqaanba ma hayo waxa u tagaan caaqilkooda caaqilkuna ma yaqaan shuruucda dawladda caaqilkuna wuxuu tagaa karaar yar oo afbashaaro meel fadhiyo waxa ay kala qabo kaasina uu jahwareeriya xafiiska ku waasha saaynu taa uga baxno waxaanu bilaabanaa barnaamijka ah sharaxaada dastuurka iyo sharciyada oo waqti dheer qaadanaya waxaan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda dastuurka iyo looyarada Soomaaliland oo dhan oo dhammaantood juhdi badan galiya shuruucda mid waliba waa inta soo buug qorshahaas ay sameeyeen oo waliba looyarada ay garyaqaanadaasi dhammaantood wax mushqaada aanay ku qaadan hawsha ay tabarruc dulkooda tahay waxaanu samaynaynaa manhajka iskuulada laga bilaabo galaaska koobaad ilaa jaamacadda ta ugu sareysa waxaynu samaynay in lagu daro barnaamijka ah muwaadinimada iyo daljacaylka oo lagu yiraahdo afka Ingiriisiga civil education waxaan ardaydu ku baran doonaan qaab dhismeedka qaranka xaqa muwaadinku ku leeyahay dalka waajibaadka dalku ku leeyahay isaga ee muwaadinka lagu leeyahay taariikhda dalka dabeecadda dalkeena khayraadka dalkeena bulshadeenu maxay isku fahamtaa maxaa ka dhaxeeya kuwada socota iyo maxay isku diidaa kaasoo qaadan doona in elementary ila jaamacadda lagu hirgeliyo haddaan intaa ku dhaafo waxyaalaha dawlad wanaagga aanu isleenahay waa lagu sixi karaa oo ah halka aasaaska habagta isku xidhi karta mujtamaca
dhibaatooyin qaran baynu hor yaalla dhibaatooyin bulsho aynu hor yaalla oo aynu u baahannahay inaanu ka wada tashanno maxaa ugu horreeya dalkeenna dhibaato weyn baa ku soo beegan aynu ognahay aynu isdhagamarayno walaalayaal dalka waxaa ka jira inuu ku soo batay maandooriyayaashu dhaqan xumadu wixii laga sarriigan jiray ee diin iyo dhaqan baa inoo ahaa oo la darjiinayo mushkiladaha ugu weyn waxaa ka mid a geedkan qaadka la yidhaahdo qaadka dhammaan dhakhaatiirta iyo jaamacadaha adduunka ee caafimaadku waxay isku raacsan yihiin inuu qaadku yahay dilaaga qofka bini'aadmiga ah oo waxyeeleeya xubnihiisa ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin beerka iyo keliyaha iyo wadnaha iyo maskaxdaba sidaa ay tahay haddana waxaynu ku dhegannahay cunista qaadka oo in badani aanay ka waantoobin waxaa nasiib darro ah in innaga oo dhaqaalaheenna ka cabanayna haddana qaadku oo waxyeeleeya nafta iyo qoyska iyo nadaafadda qaranka iyo isku xidhka bulshada intaba waxyeeleeyo la wada ogyahay haddana somalilan sanad walba waxaynu ku bixinaa qaadka oonu ku soo iibsanaa 700 oo milyan oo lacagta maraykanka ah bal qof walba isweydii xoolaheenna caafimaadka talaalka waxay naga bixiyeen dawladdu inagoo kala lacag suuriya lagu bixiyo dhakhtarradeedana waxaa taageera oo qalab badan inagu caawiyaan u baryo tagnaa daadina lamid ee dawladda naga mid haddana qaadka waxaynu ku bixinaa 700 oo milyan bal caqlidaa ka warraba oo aynaan isweydiinayn waynu ku faraxsannahay waxaynu u baahannahay xeerar iyo wada jir qaranka oo dhana inaynu aafada kaga hortagno intaa waxa dheer dawladda jaarkeena Itoobiya inuu ka iibsano wax alliya waxaynu u geyno inuu ka iibsanaa ma jiro taasina waxay keentaa dheelitir la'aanta baayac mushtarka oo aakhirkeedu noqonayso saboolnimo qofkii isagu aan wax iibgeyn wuxuu iibsadaa dhibaatada labaad ay haysataa ee soo kordhay waxa weeye maandooriyaasha xashiishad khamri kaniino iyo balaayo baaskale ciidamada amniga iyo culimada iyo waxgaradku in badan bay ka dagaalamayaan arrintaa waaxda garsoorkuna tallaabooyin adag bay ka qaadaan markay hortagaan laakiin waxa xaqiiqo ah waxa jira kooxo abaabulan oo balaayada iyagu isticmaala kuwa ka iibiya kuwa ka dilaala shaydaan marooroo dhan kooxo xoog leh oo abaabulan oo ciidamadii amnigana isku taag laayihiin maxkamadihiina marka la geeyo waxaad arkaysaa dad u soo gurmanaya qof daroogo lagu qabtay oo waarinayo waa sidan iyo waa sidan walaalayaal aynu qaran ahaan run isu sheegno muddo dhow haddaynaan arrintaa waxa ka qaban waxaynu ku jiraa marxalad ubadkeenna iyo da'deena soo socota ay naga baaba'ayaan xilkuna maanta wuxuu saaran yahay inteena nool ee xilkaska ah rag iyo dumarba waxay u baahan tahay arrin dhan oo aynu gacmaha iska qabsano ciidamada amniga iyo maxkamadaha qorshe cad baanu ka leenahay oo la dagaalanka ah oo tallaabooyinka ka qaadaan ha la isgarab taago ee waxyaalaha xun ee qaranka la dagaalamaya ayaan laga horiman taana intaasaan ku dhaafay qodobka afraad ee aan isleeyahay dowladnimada iyo qaranku ku midoobayaa oo inagoo isagol baynu waxaanu doonayba adduunyada kula tirtami karnaa waxa weeye difaaca qaranka iyo amniga gudaha ku raagi maayo ciidamada kala duwan ee qaranka waxa ay sugeen inay difaacaan cid kasta oo ku soo xadgudubta xuduudaha Soomaaliland waxay gaashaan bir ah u yihiin ummadda Soomaaliland dhaqaalahooda horumarkeeda iyo lafahoodaba bal hadda ogaada dadba ilaahay wax buu diraa mid ilaahay wuxuu u diray lacag badan shaqayso oo ururiyo mid ilaahay wuxuu u diray ummadda madaxnimo uu ka doon oo wax walba ku jiid mid ilaahay wuxuu u diray inuu caalim noqdo oo ummadda masaajidka iyo meeshii kale la gaaraba uu wanaagga ka faro diinta ka fidiyo midba ilaahay wax buu u diray ummadda ilaahay inteenaasoo dhan caalimka madaxda
baaci mushtarka hablaha odayga badankeenu nafteenu ku mashquulsanahay waxa jira qayb inaga mid ah